Dhagaystay ila dhagayso qisadan naxdinta leh. Haweeney ayaa meydkeedii la aasi waayay iyo mucjiso lagu arkay wejigeeda. Haweeneydan waxaa loo aasi waayay meydkeeda. Way cuslayd, naxashkii bay ka soo saari waayeen. Markaas ayuu shiiqii ku dukanayay u diray shiiq kale oo ka cilmi badan asaga. Markaasuu ku yidhi, sheekhow, haweeneydan waa la qaadi la'yahay. Markaasuu shiiqii cilmiga lahay ku yidhi, ku akhri aayado quraan ah. Markii lagu akhriyay aayadihii quraanka ahaa bay dhaqaajiyeen oo aadeen dhankii qabriga si ay xabaasha u geliyaan. Haweeneydii geeriyootay wiilkeedii baa qabriga gudihiisa ku jiray oo yidhi, hooyaday lugaheeda ii dhiiba si aan hoos u dhigo oo cawradeeda loo arkin. Markaasaa dhulka la dhigay oo ay diidda madaxeedii in la aadiyo dhanka qiblada. Subxaan Allah. Wiilkeedii baa yidhi, shiiqow, ma fiirin karaa hooyaday? Shiiqii ayaa ugu jawaabay, haa, laakiin aniga aan ka baxo marka hore halkan. Haddaba markuu ka baxay sheekhii oo wiilkii hooyadiisa fiiriyey buu qaracmay, wuuna cararay. Kadib shiiqii baa ka daba orday oo soo qabtay, wuxuuna ku yidhi, ii sheeg wiilkaygiiyo maxaad aragtay oo aad la qaracantay oo aad la carartay? Wiilkii wuu ka diiday inuu shiiqii u sheego. Dhowr bilood kadib bay is arkeen wiilkii iyo shiiqii. Wiilkii hooyadiisa dhimanaysay ayaan ula jeedaa. Wuxuu yidhi, shiiqow, ma i garanaysaa? Aniga waa wiilkii hooyadiisa dhimatay ee la aasi waayay sheekhow. Sheekhii baa ku yidhi, haa. Kolkaasuu wiilkii ku yidhi, hadda ayaan kuu sheegi karaa wixii hooyaday loo aasi waayay maalintii la aasay ilaa haddeertaana waan hilmaami la'ahay. Wuxuu yidhi, shiiqow, wejiga hooyaday markii la dhaqaayay hooyaday wejigeeda caadi buu ahaa. Waan eegay oo waan fiiriyey. Markii xabaashii la keenay oo gudaha aan ku jiray oo aan ku dhahayay, shiiqow, ma fiirin karaa wejigeeda? Markaas kadib wejigeedii markaan arkay waxaan u naxay. Wejigeeda aad iyo aad buu u madoobay. Waxaad u malaysaa in dab hadda laga soo dejiyey. Aad buu u gubtay wejigeedii. Sidaas baan shiiqow u naxay. Wuxuu kaloo yidhi wiilkii, shiiqow, hadda waan u soo xajiyey hooyaday. Bil walbana sadaqo ayaan u bixiyaa. Waxaan u dhisay ama aan dhisay masaajido fara badan si uu Ilaahay ugu dembi dhaafo. Shiiqow, midda kale waxaa jirta, hooyaday waxay ahayd qof aan salaada tukanin. Weligayna ma arkin ayadoo hooyaday dukanaysa. Ilaahow, towbada iyo tawxiidka tawfiiqda intaba nawaafaji Rabbow, adaa awooddaas leh. Waa walaalkiina Muhammad Habbi Xaashi oo jeclaystay in uu idinla wadaago qisadan yar oo aadka u xanuunka badan, cajiibka ah. walaal hadday ku soo gaartay qisadan, Ilaahay dartiisa u sii sheergaray si loogu cibri qaato. Shukran, jazaaka Allahu khayran, wabillahi tawfiiq.